السلام عليكم دمان أصحابتي والسلامتين كسو دوادا channel كحيدرتج وعشركي لبعض وتحناها أو إنو كغهد لدونو برنامج كفوتوشوب ما أنت مركب نحن كغهد لدونا move and selection tools إنت أين نقودك لين عشركة فلدن سبسكرايب سار channel كهداد نوع سبتاي ريحي كمبلا الكسياد مركز تنولا سعتيد ما تسند waxaan kaloo idin xasuusinayaa haddii aadan casharka hore soo arag fadlan casharka hore soo daawo si casharadaadu serious u noqdaan toolska waxay u kala baxaan qaybo badan maanta markan waxaan ku hadli doonaa laba group oo kamid ah labada groupna waxa weeye move and selection tools marka ugu horeysa tools waa inaad fahansan tahay tools waxa weeye qalabkii aad u adeegsan lahayd sawirka inaad ku jarjartid ama aad ku habaysid tools la'aan waxba ma jarjari kartid waxa laga yaabaa default ahaan toolsku inaanay ku wada jirin panelka kan marka haddii aad rabtid inaad ku soo darsatid waxaad tagaysaa edit toolbar kadib ayaa wuxuu ku soo baxaya customize toolbar kan halka waxa ku jira wax halka kaga muuqda waxa ka maqana halka ay ku jiraan marka hadaan kuugu jirin fadlan xagga ku soo darso halkan saana soo qaadaysaa left click kadibna jiidaysaa xaggan ayaa geynaysaa saas ayuu ugu biiray hadaan rabna iska soo celinaysaa done move and selection tools inta tan ayaa la isku dhaca kan ugu horeeyaan ka hadli doono wuxuu noqonayaa move toolka maxaa loo adeegsadaa waxaa loo adeegsadaa inaad ku kaxaysid meeshaad rabtidna geysid sawirka ama shape-ka waxa aad habeynaysidba left click kadib meesha rabtid gey wuxuu leeyahay move tool options haddana soo qaadno optionka ugu horeeya waxa weeye auto select waa maxay halka kan aad aragtaan work area hena waxa noo saaran afar shape oo kala duwan leh iyo background marka auto select waxa weeye hadba kan rabo waa inuu ii doormaa haddii aan auto select aan ka qaadno wuxuu noqonayaa haddii wuxuu noo joogaa shape 1 shape-ka ugu horeeya weeye shape-ka cadanka bas ayuu dooranayaa meel kale inooma doormayso shape-ka bas ayaa inoo doormaya laakiin si haddii auto select-geena aynu tick saarno hadba falaartaada meeshaad ku dhufatid ayuu ku doorayaa haddii waxaan ku dhufanaa background-ka dambe wakan xagna ayaa ka arkaysaa layerska wuu tagay waxaan ku dhufanaa kan orange ah wuu tagay cagaarka bluega white-ka marka auto select qaabka ayaa loo adeegsadaa auto select aanu ka soo gudubno haddii aanu nimaadno option-kana waxa weeye group miyaa dooranaysaa layer ayaa dooranaysaa layer waxa weeye sida tan aanu aragnay layers fara badan weeye wax kan isu tagay layerada casharka kalena ku hadli doonaa marka layerska kan waa kuwa halka kaga muuqda wuxuu leeyahay layers kaliya ii door hal layer laba layer saddex layer haddaynu group sameyno hadda group 1 kan inuu geli kan inuu geli marka group 1 ma wada dooran karno hal xabo ku jirta ayaynu dooran karnaa waxa laga rabaa labada xaboonay noo wada doorman waayo halkan ayaa waxay noo tahay layers ma wada dooran karno marka groupka marka waxa sameynaysaa group ayaa ka dhigaysaa marka taabatid groupka labada ku jira hadda inuu ku jira mid kamid ah marka taabatid groupka oo dhan ayuu ku doorayaa wakan groupka oo dhan ayuu dooray kana sida ayaa loo adeegsadaa show transform control option-kana wuxuu ka hadlayaa transform control waxa lahaa calaamadda inoo soo muuqatay shape-ka dushiisa ayaa lahaa transform control oo waa maxay waa calaamadda laga weynayo ama laga yareeyo waxa aad rabtid inaad weynaysid ama yareysid marka weynayso ka shape-ka aad rabtid markaad dooratid wuxuu ku soo saarayaa transform control ayuu ku soo saarayaa oo waa maxay halkaas ayaa tigta saaran tahay marka haddaan rabin tigta iska qaadaysaa marka move tool inta ayuu ku saabsan yahay haddaynu nimaadno marquee tools iyo waxa weeye rectangular marquee tools elliptical marquee tools iyo single row marquee tools single
column marquee tools. Marquee tools waa maxay? Marquee tools kan hadda inuu ka qaad fixed normal node. Marquee tools waxa weeye meeshaad rabtid ayaad dooran kartaa. haddaynu ka hadalno kan ugu horeeya oo ah rectangular marquee tools, soo qabanaysaa meeshaad rabtid ayaad dooranaysaa adoo selectionkaagu wuxuu u samaysmayaa qaab rectangular ah. kadib waxaad samayn kartaa waxaad rabtid ayaad ka bedeli kartaa. su'aalahan waxaan rabnaa inaynu brush baan isticmaalno. brushkaan isticmaalayno waxaynu uga dhigtaa huruud. waxaa ka dhigi kartaa waa ka bedeli kartaa inta ku dooran bes ayaa waxaad rabtid ku samayn kartaa kana bedeli kartaa colorka. lightka dark baa ka dhigi kartaa, exposure ku badin kartaa. waa kan kadibna waxaad dhahaysaa deselect. intii aad dooratay ayuu kaaga bedelayaa colorka. marquee tools wuxuu leeyahay rectangular marquee tools, inta kalena waa la mid. ellipticalkuna waa iyadoo wareega. single-kuna waxa weeye waa hal line. row isagoo ah, column isagoo ahna waa hal line. marquee tools waxay leeyihiin optiono badan. tusaale ahaan optionkan ugu horeeya waa maxay? waa add selection. waxaad ku daraysaa selection kale adoo waad aragtaan calaamadii si isu bedeshay plus ayaa hoos ka soo fulay. hoos ayaynu kaga daraynaa hadda selection wuxuu noqday saan ayuu ekaa. mid kale ayaynu ku dari karnaa saan ayuu noqday. waxaad samayn kartaa subtract ayaa samayn kartaa, waad ka jari kartaa. waa maxay? waxaanu sameynaynaa hadeer intaa ka jar ayaynu subtract ayaa samayn kartaa. waa maxay? waa ka jar, wuu ka jarayaa. haddaynu u nimaadno kan waa maxay? waa intersect. labada rectangular aynu dooranayno meesha ay ku kulmaan, inta ay ku kulmaan labadaasi ayaad ka soo reebaysaa. tusaale ahaan kan inoo soo qaad, intaas ayaa soo haraysaa. intii ka dhaxaysa labadooda ayaa soo hartay. feederkana marka hore 0 buu ahaa, noo kordhiya. feederku saan ayuu noqonayaa. markaa feederku barisid wuxuu noqonayaa waa baahayaa wixii intii ku ekaan maayo uu joogay. optionkaasina inta ayuu ku tusinayaa. intaasna kugu gudbaynaa marquee tools. waa isku mid qaabka loo adeegsado, shapeskiisa bes ayaa kala duwan. haddaynu nimaadno lasso tools. lasso tools iyana waa wuxuu ka mid yahay toolska wax lagu dooro. marka kan ugu horeeya haddaynu ka hadalno, kan adiga ayaa xorriyad u haystaa. meeshaad rabtid ayaad marin kartaa, intaad rabtid ayaad dooran kartaa. select intaas qaabkaad rabtid ayaad u dooran kartaa. isaga ayaa soo ka xiraya. markaad sii daysin intaad rabtid ayaad dooran kartaa. sidoo kale ayuu wuxuu leeyahay wax ku soo dari kartaa, israacayaan. subtract ayaa samayn kartaa, waa ka jari kartaa. waa kana intersectionkooda inta u dhaxaysa ayaa ka soo haraysa. waa qaabkii uu lahaa marquee tools ayuu isna leeyahay. feederkii waa kana. waxaa jira oo kale lasso tools waxaa ka mid ah polygonal lasso tools. waa maxay polygonal? isagu si straight ayuu u baxaa. kii hore qaabkiisa ayaa dooranayay, kan waa straight line ayuu raacayaa. kana qaabka ayaa u dooran kartaa. haddaynu u nimaadno magnetic lasso tool, kan waa maxay? kan wuxuu raacayaa archiska, isaga ayaa ku dhegaya. waa kan ugu fiican weeyo badanaa dadka bilowga ah ay adeegsadaan. waa maxay? isaga ayaa geeska ku dhegaya, wax hawla kaagama baahna. markuu sii yimaado kadibna wuu dooran yahay. isna intii oo kale ku samayn kartaa. waa israacayaan, wuu kusoo biiray. haddaad in ay kaa raacday, intanoo kale kaa raacday, waad ka jaraysaa. waa aragtaan intaa ayaa noo soo hartay. waxaad rabtaa qayb ka mid a inay kuu soo muuqato bes. tusaale ahaan
intaas aynu rabnaa inay noo soo harto bas. ونو صارتي سكتي مركن سمنو ساسا اي نو صارس لا سو تولز كنت aynu kaga tagaynaa haddaynu u nimaadno quick selection tool isagu hal mar ayuu ku doorayaa adiga ayaa ku jiidaya wuxuuna raacayaa colorska iyo waxa isku midka u badana dooraya isagu adiga ayaa xorriyad u leesna waad ku jiidaysaa inta ayuu noo dooray kan marka waxaad samayn kartaa minus ayaad gelin kartaa waxaad rabtaa intaasoo kale inaad ka jirtid in ayaad rabtaa inaad iska jirto waad iska tirtiraysaa waxaad rabtaa inaad ku darto waad ku soo daraysaa select waxaa kaloo jira qaab kale oo adeegsan kartid oo ah inoo doorinta tan alta ayaad taabanaysaa meeshaad halkaa ka tegi lahayd optionkaad soo dooran lahayd markaad dooratid waxa ayaa kaa raacay alta ayaad taabanaysaa kadib ayaad left click taabanaysaa waxaad rabtaa ayaad iska jaraysaa markaad sii daysona wuxuu noqonayaa plus wuu soo raacayaa waxaad rabtid noo ku dari kartaa calaamadda waad weynaysan kartaa waxaad ka weynaynaysaa calaamadda keyboardka ku taala oo ah bracket kaas ayaa xiraysaa markaad yaranaysidna bracketka furan ayaad taabanaysaa kan intaas ayaa loo adeegsadaa haddaynu nimaadno match point tool isna waa maxay isagu intii isku kala rabo hal mar dooraya waa one click intaad rabtidna waa ku dooraya one click waa aragtaa intaasuu doora isku kalarka one click intan uu dooray one click inta isagu kala tolerance ayuu ku shaqeeyaa badanaa marka isaga jiid iyo waxa uma baahna hal mar ayuu ku dooraya waxaad rabtid add baa ku samayn kartaa isaga waa ku soo dari kartaa waxaa ku samayn kartaa subtraction oo ka jari kartaa intaad rabto ayaad iska jari kartaa waxaad ku samayn kartaa oo kale intersection oo is dhexgelinaysaa labada selection meesha ay iska galaan ayuu soo reebayaa quick selection tool inta ayaan kaga tegaynaa waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan maanta casharkeena inta ayuu inoo joogayaa waxaa inoo balanaa casharka xiga mar kale waxaan idin xasuusinayaa inaad subscribe dhahdaan channelka haddaad nagu cusub tahay like haddaad casharka ka heshay wixii su'aalaha ama faahfaahin waxaad nagu dhaaftaa commentiga mahadsanid